soo dhawaada saaxiibayaal kulantis maqal kale wanaagsan oo suuban. Maanta casharkeena waxaan ku qaadanaynaa qeybaha guriga sida qolka jiifka, qolka fadhiga, jikadii iyo suuliga oo kale. Sidoo kale ayagana waxaan isku daynaa guriga waxyaabaha u muhiimka ah sida daaqadaha iyo albaabada oo kale inaan ayagana wax ka taabano. Marka wax weeye casharka anagu soo koobana hadana waxyaabaha guriga ugu muhiimsan oo aas ku ah wax weey baan casharkeena maanta ku qaadanaa saaxiibayaal markaan wada socono. Guriga ahaan waxay ku noqonaysaa Mary to speak to you parts of the house, qeybaha guriga ama waxa la oran karaa qeybo kamid ah guriga. Speak house guri saaxiibayaal wadan ka raali gelinayaa speak hore waxa uu soo qaadanaa casharka horeeyay marka hadda waxaan u soo ceshay xasuusin ahaan si cashar fahankeena uu lahaado barbilow. Ibno domatio bedroom qolka jiifka, saloni living room qolka fadhiga, trapezaria dining room qolka cuntada, cuisine kitchen jiko meesha cunada lagu kariyo. Anagu waxaan naqaanaa jiko marka dadka qaarkii inay madbax yiraahdaan baa suurtagala. Balcony balkoonka meesha sare oo barsada oo dhismayaasha badan looga caweeyo ama dadku iskaga nastaan. Banyo bathroom musqusha ama suuliga qubeyska leh waxay yiraahdaan Greek banyo English noqonaysa bathroom. Sidoo kale suuliga fadhiga caadiga ama sidoo kale lagu xaajootaan qubeyska ahayn waxay yaqaanaan toilet Greek u yaqaanaan English noqonaya toilet. Garage meesha guriga haduu leeyahay meel gawaarida la dhigto ama meesha gaariga la dhigto kale Greek waxay yaqaanaan garage. Brathero window daaqad guriga daaqadiisa Greek waxay yaqaanaan brathero. Porta do albaabka guriga asna wuxuu noqonayaa porta. Casharkeena maanta intaas buu ku soo idlaaday. Waxaan filayaa guriga inta ugu muhiimsaneed ama qeybaha guriga wax ugu macquulsanaa oo marba wax basicalka waxa inaan si kooban waxa u soo sharaxnay ama in ku soo gudbinay. Marka mar walba waxaan diyaarinahay inaan waqtigeena si wada jir wada faa'iideysano saaxiibayaal. Waan Xaaji Yuusuf waxaan leeyahay marna guusha ka raajay dhignina waxaan ka codsanayaa like ta subscribe ta labada inaan ugu saacidaan aad ba u mahadsantiin. Waxaan idinkaga tagay salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.